caawa kolley madashani waxaanu ku soo dhaweynaynaa guddoomiyaheena injineer faysal cali xuseen oo runtii dhalinyarada gobolka uga faa'iideynaya doorka uu qofka dhalinyaradu ku leeyahay ama aqoon-yahanku horumarka runtii dalka kulima caawa isaga inta ugu fara badan muxaadarada runtii lectureka qaadan doono insha allah waxaan rajeynayaa insha allah inaan noqoto lectureka inoo jeedinayo iyo kadib su-aalo wixii haya insha allah ay weydiino kule si gaara oo jaamacadda alfa runtii noo shaqeeya guddoomiyuhu ilaa aasaaska jaamacadda bilowgeedii xaflad kastana runtii nala joogi jiray si gaaraan runtii ugu hambalyaynayaa kule barnaamijkan runtii toos inooga bilaabmaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta marka ilaahay mahad leh subxaana watacaala ilaahay keligii mahad leh ilaahaygan macooyinka badanaysa mahad leh ilaahaygan macooyinka badan u horeysa islaamnimada ayaa mahad leh subxaana watacaala waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa professor cabdiqani xafladdan wanaagsan inoo qabtay cilmiyeysan aan ahayn tii qabaa'ilka iyo tii meherka aan ahayn yani aad iyo ugu mahadsannahay meelaha jaamacadu waa meelaha dee laga faafiyo magaalada wixii wanaaga iyo wixii cilmiga magaaladan burco waxaan imi 95 oo khali ah inta lagu dagaalamay lagu kala qaxay anaa guddi nabad ah ayaan imi 90 waxaa la heshiiyey 1997kii 98kii ayaa jaamacadda camuud la furay markaa jaamacadda camuud la furay qurca laga bilaabo ilaa ceerigaabo hal iskuul may lahayn hal iskuul may lahayn gaabkaas weli weydii dhexeeya galbeedka gabiile iyo wixii ka galbeeya iyo wixii bariga maxamed xuseen meeyarkii markaa markii la heshiiyey nabadu dhacday ayaa iskuulkii horeeyay yidhi waan bilaabay aakhirasiinin qiimala buu ahaa waxaan u soo ururnay anuu markaa waxaan ahaa jaaliyadda finland madax u ahaa lacag baan usoo ururnay shacbiga finland ayaan koob la hor fadhiisanay isla berber taagnay kusoo shuba lacag maanta waa ilaahay mahadda wadi kaasoo jaamacadaa leedahay jaamacada waxaa lagu helaa waa nabadda nabadda ayaa lagu dul dhisaa horumarka horumar waxaa lagu gaadhaa midnimo iyo hoggaan wanaagsan iyo aqoon ay lagu gaadhaa maanta dalkeenu waa aragteen mar baa maqan qaar waxaa lagu qoray dispute area 30 sano aynu ahayn ilaa inta maalintan ka baxnay midnimadii aan yeelanay Soomaaliya intaas cidina haysan ma jirin in haysatay aqoonsigeenu waa dijuri waa sharci inagu manhin ma jirteen oo kale waan ku xusanayaa dal ku darsan oo bilaa shuruud ay leeyahay waxa hor weynayna horiyaa waxa way aqoon dar qofka haddaanu aqoon lahayn xaqiisa ma doonan karo waxaynu u daran waxa weeye anaga generation nagu xigay tacliin ahaan nagu xigay dagaaladayba ku dhinteen dalka lagu xoreynayay generation anaga idinka noo dhexeeya ma jiro taas waxay keentay inay institutionskeeda dad aan aqoon lahayn ay fadhiyaan markaa maxay keeneen halkay ummadda u shaqayn lahaayeen inay idinka kala qaybiyaan reer idka dhigaan aniga waxaan u garaadistay burco iyo hargeysa iyo boorama oo kubadda iyo xeegada iyo ku tartama burco oo sidaasay magaalo ahaan lagu tartami jiray wax la yidhaha guddi reer adduunka meel ay ka jirtaa oon somaliland hayn ma jirto markaad guddi reer samaysay qabiilka waa institutionalize ka haysa adduunka waxa weeye
waa nation waa institution building iyo nation building ka daba baxaysa then state building saddexda stage baa la maraa inagu nation weyn oo waxaan isku leeyahay family waxaan ku guultaraysay in institution building ka sameeyno haddaan institution building sameynina state building ma dhisi karis halkaa inaga haysta waa halkaa waxa weeye markaa halkii idinku ka hogaami lahaydeen ee dadka u hogaami lahaydeen waxaa lahaydeen waa from darkness to light what من الملك من جهل إلى نور بوتا تعليم أي واحد يهجمني من هذا مي كي إلى عاقل بناك عمر يصعدي ما عرفت إما عمر يروح على وصعدي رول كيني ما مغني رول كمان تسمع لا كم مغني what the voice of the intellectuals كلامي كثير الكود ولا فرياه عاقل بقى وشيكي وحوجة شيكين يا شيل بكار كله difference كل حي قبيلنا قرن مصممكم قبيل إنه مرقس محمد الإسلام الناي نبي محمد عليه السلام مركو يد قبيل هو أوريا هالكبر ما تمرنا شيل يركب ما تمرنا وارد هو يدي باشقين إذا أبي بقاد عنيا وترك وعنيا دودي عروت عنيا عروتي سموجا ما هو يذهب كيف جامعتك صو صارتو أي شقة ويدو أي ذهب كيف نساء وحلا ورضو ترحيل من قفقوا قبصة ليبيا كسونا يشيل التلفون صوته برمك على الصوت بيرا ما هي نحيسته حقي دولة حقي أبابا أنا هو حنك بحي سكول كان إلا جامعة بلا اسمع كبحي دولة بحي جد ما أنت نيدك واحد بلا شيء مجرد هي دولتي يكي سبقها لبدو ولا حق عشورتنا ولا قاضية عشورتي ولا قاضية عافماتك ما هي وحي الدولة قبيلة ما هي علمك هو إنه إنك موقع إنك واحد كعقل بدن قف وحبرتي نيك ريميك لأنه قف كريمي وحكرنا يا وحي أتكك بونات قيام كابو كريمي kaa wax bartay aday maxaa dan kugu jirta moojaane maxaa dalka uu soo eekaanaya qoyska soo eekaay kama fikriyo wariyaal kama anta hableena alxamdulillah rabbil alamin markii la bilaabay hargeysa lagu bilaabay iskuulada nuuridiin oo kale afar hablood oo kooniyir fadhiya sidii baa malaba u dhamaaday bakayle la soo qabto kale iyo kooniyir fadhiya jireen maanta way isku dhudhoodin 45 ma maraysan ardayda jaamacada tagta waxa barataa wali waa fari bright gacan baan intii taagay hablahay aabaya aadi aad shalay maanta waxa la sheegay inaan ka baxday Abarsa University high school oo Mareykan tagtay oo application sameysay cyberka ولقى يبسدي لبيه سجاش مليون دولار بالك سيستم لبيه سجاش دولار وايد تاسو كلا كده ترول مدوكينه marka waxa ay sawaarayaan dalkan wuxuu u baahan yahay codkiini buu u baahan yahay students union baa la samaystaa halkaas lagu soo bartaa barbaarinta leadership anu magan secondary ku jiray student union kan ku jiray markan jaamacada tagay leader waxa noqday African Union chairman baa noqday students halkaas leadershipadu ay ka soo bilaabata marka haddaydu idinku ayadun intan samaysataan committee student committee ay samaysan ayadun dalihiina magaaladiina aydan ka waramin maxay magaaladiina u damnal u security laadahay
maxay suuqii mas'uul ay yahay oo idinku jaamacadaha ku jirtaan volunteer ugu shaqeynay iskuuladiina oo maalinta caynkaas ana xiisada xisaabta siinaya iskuulka hebel isxilkaasa responsibility saara cilmigu waa inuu idin hagaa oo xil idin saaraa national inay tacliintu ina hogtaan doonina buwaagta akhriya la barayso ma haysataan buwaagta akhriya you have to be books waa noqota qofku ka la bareer badan iyo ka aqli badan maskaxdiisa marka idinku guriyihii ma joogsaan graduation-kii hooyadii ka soo qayb galaysaa waalidkii ka soo qayb galaya ya culture-kiina baa barateen 17 jaamacad ku tagno 18 jarmaan ahayn laban ka soo baxan balwadii baa iska qaban kara weyn intii kale moogta laakiin wax waayo inuu qofku iskuul dalkiisa at least first degree inuu ku qaataa marka soo majuura ayuu masteredka oo ganaya wax loo soo diray ya marka waxa doonaysan waa example idin noqdaa qofka jaamacad ka baxay ee wax bartay ee successful noqday ka dhigta example role model yeesha marka waa mahadsantihiin tacliinta wad ogtihiin less than 12% maanta iskuuladana gasha intii nasiibka ay yeelateen waalidkan ixtiraama inuu midxun inaga xumaado ma doonin 1% kuwa kalena insha Allah ta'ala bilaash baan ka dhigi doonaa iskuulada insha Allah ta'ala ilaa secondary insha Allah qofka soo reeso Soomaaliland ama miyaha jooga ama magaalaha jooga waxaan doonayaa inaan tacliinta gaarsiino insha Allah 10 sano gudaheed inaan ka saarnaa ilmaha Soomaaliland oo tacliin oo iskuul ku jirin وأنا تاجي الله إن شاء الله وأنا سامع كرنا إن شاء الله تعالى وأنا مع سنتين. نحن سؤالها قبطان سيدي أي نوقف هذه السلهين قبلهان يدليرهان يقويانهان با نحن سؤالها نقبله مركا سؤالها قعدت على تاجيا كذي بويريا قدومية سيدي مدوكسون هاي waxbarashada dalkeena inooga timaada dalalka dariska sida Taiwan iyo Ethiopia ma soo dhaafto Hargeysa engineer caawadna la joogta mar hadii siyaasad lagu kala goosanayo waxbarashada freegaana ka gudoomiye ahaan maxay eeday kaaga qorshaysan waxbarashadaas soo dhaaf weyday freeda Hargeysa soo dhaaf weyday ay inooga timaada dalalka dariska waxaan weydiin lahaa gudoomiye waxa jirtay in mashaariicda dalka lagu maamulayo sida NGO-yada kale mashaariicda Hargeysa lagu soo kala jaro amba ayagoo habaysan oo shaqaalahoodii waxoodii wata burca la keeno ayagoo dhalinyartii aqoonta u lahaa ee ka faa'iideysan lahay maxay toray burca joogan oo Hargeysa laga keeno haddii aad ku guulaysato talada dalka halka ugu sareysa taa maxaad ka qabanaysaa su'aasha kana weydiinaya waxa weeye caafimaadka dalkeenu halkuu marayo waad ogtahay especially burcana waad ka warhaysaa caafimaadkeedu halkuu marayo waxa jiro oo kale in caafimaadkii waxyaabihii baahiya asaasiga ahaa ay siyaasadii ku milmeen sida caafimaadkii waxbarashadii haddaad soo baxdo maxaad ka qabanaysaa arrinta caafimaadka dalka waxa kaloo jirta in waxyaabaha dadka mas'uuliyiinta ee caafimaadka loo magacaabayo oo kale aan baan garoonkoodu xirfadeed lagu sarayn aqoontii leeyihiin laakiin lagu sareeyo wax kale oo si kala taana maxaad ka qabanaysaa si kale aan jecelnahay aan uga jawaabto waan ka gaabsi lahayn yaasiin su'aashiisi waxa weeye scholarship-yada amba Taiwan ha bixiso amba Ethiopia ha bixisee wax cadaalad ku baxa ma jiro Hargeysa way si kala cabanaysaa laba bahasho meel isma taagto moogtay hadday magaalo ku eegtay waxba bay ahaateen لأن وقت إيش هو حفيظ كستان ده نقف كفنية قبيل بالوجي يلا ما جين وحقبتهم وقتي ودي مغلي ده حنف واقي قرتي شيء سبب إنك كيسي وياك حنف سبب ما بيليسان حنف يا يا بهاش هو ده حنف كي تعلق كي هاي يسكر شيء كنا ترير كودي يقول لي أنت حسن قاضي أنت حسن كي تيوال لي هاي وينو بدلنا إن شاء الله تعالى تانيكا waxaan jeclahay inaan soo diro professorka political program ka xisbiga ucud anagu waxaan doonaynaa inaanu
15% boqolkiiba 15 aanu gelino waxbarashada budgetkeena boqolkiiba 15 caafimaadkeena in labada ayaan doonaa sector-ka waxa weeye infrastructure-ka kaafra waxa weeye cuntada isku filnaanta inaan gaajada la dagaalano ayaan doonaa insha Allah taala marka aanu tacliinta iyo caafimaadka waxaan jecelahay inaan macalinka ka shaqeeya tuule wadaamo gooyo kala ka shaqeeya inuu ka lacag bato ka Hargeysa iyo Burco ka shaqeeya wala siyal allowance dheeraad waxaan jecelahay macalinku waxa meesha tacliinta ugu fiican adduunka lagu sheegaa wadanka Finland iyo wadanka South Korea ayaa ku tartama marka waxa la isbarbar dhigay habka ay macallimiinta ku doortaan Finland iyo Mareykanku waxa la soo sheegay marka 10kii soo doorta shaqo macallimo ah ee Finland mid baa hela Mareykanka 10kii soo doorta mid baa waaya marka waxay doontaa macallimada dadka intellectualska students ayaa soo doonta macallimada mushaharkooduna waxa loo bixiyaa way kala lacag badan yihiin wasiirada iyo saacadaha lagu bixiyaa bisaadaad waxa weeye principalku xaq uu leeyahay wuxuu israa way kabisa oo si wanaajinaysa waxbarashada iskuulkaaga inuu isna ku daro uu gacan banaaya marka adduunka standardadaas ayaa la kala qaadanaya waan soo afjarnaa eexda insha Allah taala waan soo afjarnaa waxa weeye maxaa kaaga qorshaysan biiri mashaariicda horta waxa iga sharxsan mashaariicda imaka laba mashaariic baa jirta mid waxa weeye SDF tawi Somaliland Development Fund kaasuu leeyahay oo dadkan doonariska ayaa ku leh saameyn oo la qaybiya marka kii hunguri weyna waa gacanta laga qabtay marka way ka fiican tahay kuwa NGO-da international NGOs waxaan doonaa insha Allah taala inaanu yeerno lacagtooda ogaadno area ka fakshkareen ogaadno annagu aanu hagno halka wax ka qabanayaan inay noqoto la socoto qorshaha qaran ee horumareen in la socoto nimanka halka waan dood hay'adahan ku arkayo barnaamijka hay'adaheena maana dad wada agtiisa tuuliyaal isku dilay waxa la isku dilay ma taqaan $30 baa loo soo dilay reerkiiba buul yar buu samaysanaya guri waxay kala lahaayeen meel kasta IDB baa ka joogta waxaan doonayaa insha Allah taala inaanu gobol kasto ka sameeyno vacation school هي فرسمة بقول كباش شنية تضباط وحنا ديار قرينا إن شاء الله تعالى عردنا إن فاكيشن يسكول كلام بقول كباش شنية رابط وحنا قرينا إن الجامعة على حاجة يسكول marka taa ardayda wax baratay marka dhalinyaradu wax soo bartay jaamacadda wax soo qoysay ugu fidoonay interview aqoontiisa halka doonayay uu gaaray dadkii ku maamulo wax ka hor imanaya taa maxay idinka qorshaysan tahay laftakeeda aan u baahnay in laga gudbiyo gudbiyo jawaabta insha Allah وماشي باور فاكم بس ما اسمي دولتنا بدي كبحنا ماشي انستيتيوشنز ايا كبحنا ما كان وحوي هدان سترونج انستيتيوشنز اللي سو عدالة كل شقينية والشرع كل شقينية عاقلكم شغال يسوقوا على لها والدولة الآن تهوية الشرع الآن تهوية مركا أنا كمركو قفكو حرك كلا وكب حوايو حقي سوايو أيو طلاي أورانيا طلاي تاسو حن كبحث نواقع بيارد إنه دين الإسلام سبحانه وتعالى كتاب كلا دين يا شرعية سنة رسولك عليه الصلاة والسلام هذا أو سيدا إن توحيد كو قرني توحيد كوكيا لا عدنا عين سوافن الجنوب تاسن كشغين إن شاء الله تعالى